الرحمن الرحيم maantay oo bishu tahay 16kii bishii koobaad madaxweynuhu wuxuu la kulmay hay'adaha UN-ka qaybaha Puntland ka degan ulajeedada uu madaxweynuhu la kulmayna waxay ahayd bal inuu waraysto wuxuu ka waraystay waxqabadkoodii hore iyo waxyaalaha ay damacsan yihiin inay fuliyaan muddada soo socota waqti dheer ayay isla qaateen muhiimaduna waxay ahayd inuu ku dhiirigeliyo una ballan qaado shaqadu sidii loogu talagalay inay u soconayso ulana socdo waxyaalaha ay damacsan yihiin inay dalka ka fuliyaan balqaadiyo badan buu madaxweynuhu u sameeyay oo ah inuu mar walba garab taagan yahay iyagana ka filanayo bulshada reer Puntland in ay sidii loogu talagalay ugu adeegaan waxayna u ballameen in la isugu yimaado shirar dambe oo si faahfaahsan ay u soo gudbiyaan waxyaalaha ay gacanta ku hayaan aad iyo aad baan waxaan u rajeynayaa shirkaasina dhawaan inuu dhaco aad iyo aad baan u mahadsantihiin